kulanti waxaan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysaa halkani waa raadiyo Xoriyo codkii shacbiga Ogaden iyo saacada Afrikada barina hadda waa 7 iyo barkii fidnimo موجودة قابن إيشان إيا لباتن كمتر بان ديركدونا ياهي كوي 1,865 كيلو هرتز أياد نقد نقيسان waxaad kaloo nagala xiriiri kartaan meel kasta oo caalamka joogtaan ba internetka Ogaden iyo radio xoriyo.com jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden ayaa bayaan ka soo saartay Isbahaysigii loogu magac daray Isbahaysiga xorriyadda iyo dimuqraadiyadda bishii May ee kal hore lagu aas-aasay wadankaasi Holland ee magaalada Utrecht Isbahaysigaas oo ay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden kamid ahayd ayna ku bohoobeen ururo ka soo horjeeda xukunka EPRDF ayaa waxa inoo haya doodi danwa 22 bishii May 2006 ayay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden la gashay isbahaysi cusub jabhadda xoreynta Oromiya Onlf jabhadda wadaniga shacabka Itoobiya EPPLF jabhadda xoreynta Sidaamo SLF iyo gaashaanbuurta xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda CUTP oo si wada jira u sameeyeen isbahaysiga xorriyadda iyo dimuqraadiyadda ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano AFD isbahaysigu wuxuu qeexayaa rajada iyo himilooyinka sare ee malaayiin rag dumar iyo caruur ah kuwaas oo muddo dheer loo diidanaa xuquuqdooda lama taabtaanka ee ah in ay aayaha mustaqbalkooda ka tashadaan iyadoo oo ku salaysan mabda'a isxaaqa dhowrka isu dulqaadashada cadaaladda xorriyadda iyo dimuqraadiyadda shacabka Somali Ogaden wuxuu dhibaato aan la qiyaasi karin ka soo maray talisyadii kala dambeeyay ee ay ku jirto tan hadda talada haysa ee hogaamiso EPRDF gudaha Ogaden dilka sharciga ka baxsan ee loo geysto Soomaalida Ogaden xadhiga aabayeel la'aanta ah iyo cadaadisyada kale ee u geysato EPRDF waa mid aan xad lahayn Ogaden waxaa ka jira iskuul aad u tira yar ma jiro dhismo macna leh oo la taaban karo ama ba laga hadli karo iyo ciidamo maleeshiyaad oo ay abaabusho xukuumadda EPRDF oo si joogto ah u argagax iyo cabsi geliya shacabka mararka qaar koodna dila dad shacab ah oo aan dambi gelin ganacsiga soo jireenka ah ee u dhaxeeya Ogaden iyo Soomaaliya oo ah isha kaliya ee ay ku tiirsan yihiin shacabka iyagu waxa si joogto ah oo la kaca u carqaladeeya ciidamada EPRDF si ay shacabka iyagu ugu abuuraan dhaqaale yaraan adag oo dadka oo dhan saamaysa gargaarka bini'aadamnimo ee loo fidiyo dadka ku tabaaluubay abaaraha Ogaden ka dhaca waxa inta badan suuqa madow ku iibsada saraakiisha ciidamada EPRDF iyaga oo ka faa'iideysanaya qiimaha sareeya ee raashinka taliska laangaabka ah ee EPRDF dhulka uu qorsheeyay inuu ka fuliyo mashruuca baarista shidaalka wuxuu uga raray dadkii deganaa ee shacabka ahaa si aan istikhyaarkooda ahayn oo xooga iyagoo aan wax magdhow la siinin xoog ku raridaasi waxay sii xumaysay dagaal beeleedkii u dhaxeeyay reer guuraaga oo ku salaysan daaqsinta iyo biyaha oo keena dhimasho badan taliska laangaabka ah ee EPRDF wuxuu sidoo kale u isticmaalay Ogaden inuu ku tababaro maleeshiyaadka dagaal ogayaasha Soomaaliya iyo inuu si tuuganimo ah uu hub ugu gudbiyo dagaal ogayaasha Soomaaliya taasoo ah jabina cad cunaqabatayntii hubka ee ay qaramada midoobay ku soo rogtay Soomaaliya taasoo ay ku sii hurunayso dagaalada hubaysan ee ka socda Soomaaliya iyo inuu ku keeno xasilooni darro siyaasadeed gobolka oo dhan inkastoo taliska EPRDF bayaan ku sheegay inuu wada hadal toos la galayo jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden haddana wuxuu si ula kaca uga warwareegay in la raadiyo sidii xal siyaasadeed oo dhameystiran loogu heli lahaa mashaqada Ogaden isagoo oo door biday inuu iska indhatiro jidka nabadda ee lagu gaari karo wada hadalka isagoo bedelkeeda doortay inuu sii wado xalka military ee macna la'aanta ee sababay dhibaatada baahday ee haysata shacabka Ogaden bishii dhaaftay ee May wuxuu taliska laangaabka ah ee EPRDF Ogaden ku daadiyay kumanaan ciidan isagoo isku dayay inuu si xoog ah ku tirtiro jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden iyo in la saxariiriyo kuwa looga shakiyay in ay taageerayaal u yihiin jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden weerarkan ciidan ee gardarrada ah ee ku socda shacabka Ogaden waa mid xaali ah oo hadda socda iyadoo oo dhimashada dadka rayadka ay sare u sii kacayso
ciidamadan cusbi waxay qayb ka yihiin weerar 3 bilood oo looga gol leeyahay in lagu sugo dhulka loo calaamadeeyay in laga baaro shidaalka. Isbahaysiga xorriyadda iyo dimuqraadiyaddu wuxuu leeyahay ihtimaal fiican oo matali kara wadiiqooyin kala duwan, midka ku salaysan isxaqa dhowrka iyo ictiraafka inaan xoog lagu joojin karin rabitaanka shacabka inay aayahooda ka tashadaan, iyada oo taas tixgelinaysa ayay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden ku boorinaysaa beesha caalamka inay taageerto baaqa isbahaysiga xorriyadda iyo dimuqraadiyadda ee ah in la isugu yimaado qoomiyadaha oo dhan shir loo wada dhan yahay oo ujeedadiisu tahay cadaalad iyo heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran. jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden waxay la qabtaa xubnaha kale isbahaysiga in laga gudbo taxadiga naga hortaagan wada shaqaynta, waxaana diyaar u nahay inaan ka ciyaarno doorkayaga in aan xaqiijino siyaasadii nacaybka iyo kala shakiga in lagu bedelo siyaasad dulqaad, isqadarin iyo wada shaqayn si loogu dhiso mustaqbal iftiimaya dhammaan dhinacyada ay khusayso. Anjalani
Thank you.